Waxaan kula wadaagayaa xogta 40 masjid ee dunida ugu waaweyn wadamada ay ku yaalaan iyo inta qof ee hal mar ku dukan karto. Haddii aad nagu cusub tahay, waxaan idinka codsanayaa Facebook page-kayga Yaxya Axmed Sahal iyo YouTube-ka intaba inaad rukumato si muuqaalada mar walba soo geliyo ku soo gaaraan. Aan ku bilowno masjidka afartanaad ee adduunka ugu weyn. Masjidkan waxaa lagu magacaabaa Bilal Muftadiin, wuxuu ku yaalaa wadanka Indonesia. Masjidkan waxa uu qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 39aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Negara Mosque. Masjidkan wuxuu ku yaalaa wadanka Malaysia, wuxuuna qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 38aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Kokatab, waxa uu ku yaalaa wadanka Turkiga, waxa uuna qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 37aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Baalambeg, waxa uu ku yaalaa wadanka Indonesia, waxa uuna qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 36aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Central Java, waxa uu ku yaalaa wadanka Indonesia, waxa uuna qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 35aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Hasan Bolkiah, wuxuuna ku yaalaa wadanka Philippines, wuxuuna qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 34aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Budra, wuxuuna ku yaalaa wadanka Malaysia, wuxuuna qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 33aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Amir Abdulqadir, wuxuu ku yaalaa wadanka Algeria, wuxuuna qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 32aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Al Azham, wuxuu ku yaalaa wadanka Indonesia, wuxuuna qaadaa 15,000 oo qof. Masjidka 31aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Makashkala, wuxuuna ku yaalaa wadanka Ruushka ama Russia, waxa uuna qaadaa 17,000 oo qof. Masjidka 30aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Federal Territory, wuxuuna ku yaalaa wadanka Malaysia, wuxuuna qaadaa 17,000 oo qof. Masjidka 29aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Hagia Sophia, waxa uu ku yaalaa wadanka Turkiga, waxa uuna qaadaa 18,000 oo qof. Masjidka 28aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Batam, waxa uu ku yaalaa wadanka Indonesia, waxa uuna qaadaa 18,000 oo qof. Masjidka 27aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Tungu Mizan Zain al-Abidin, waxa uuna ku yaalaa wadanka Malaysia, waxa uuna qaadaa 20,000 oo qof. Masjidka 26aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa West Sumatra, waxa uuna ku yaalaa wadanka Indonesia. Masjidkan waxa uu qaadaa 20,000 oo qof. Masjidka 25aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Sultan Qaboos, waxa uu ku yaalaa wadanka Oman, waxa uu qaadaa 20,000 oo qof. Masjidka 24aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Diyan al-Mehri, waxa uu ku yaalaa wadanka Indonesia, waxa uuna qaadaa 20,000 oo qof. Masjidka 23aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Jakarta Islamic Center, waxa uu ku yaalaa wadanka Indonesia, waxa uuna qaadaa 20,680. Masjidka 22aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Shah Alam, waxa uuna ku yaalaa wadanka Malaysia, waxa uuna qaadaa 24,000 oo qof. Masjidka 21aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Salahuddin Al-Ayyubi, waxa uu ku yaalaa wadanka Turkiga, waxa uuna qaadaa 25,000 oo qof. Masjidka 20aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Abuja Mosque, waxa uuna ku yaalaa wadanka Nigeria, wuxuuna qaadaa 25,000 oo qof. Masjidka 19aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Jama Masjid, waxa uuna ku yaalaa wadanka India, waxa uuna qaadaa 25,000 oo qof. Masjidka 18aad waxaa lagu magacaabaa Atating, waxa uu ku yaalaa wadanka Indonesia, waxa uuna qaadaa 25,850 qof. Masjidka 17aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Sobaneke, waxa uu ku yaalaa wadanka Turkiga, waxa uuna qaadaa 28,500 oo qof. 16 Jamia Masjid waa masjidka 16aad ee ugu weyn adduunka, waxa uu ku yaalaa wadanka Hindiya, waxa uuna qaadaa 33,000 oo qof. Masjidka 15aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Sheikh Zayed, waxa uuna ku yaalaa United Arab Emirates, waxa uuna qaadaa 42,000 oo qof.
masjidka 14aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Baytul Mukarram waxa uu ku yaalaa waddanka Bangladesh waxa uuna qaadaa 42,000 oo qof. masjidka 13aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Al Akbar waxa uu ku yaalaa waddanka Indonesia waxa uuna qaadaa 59,000 oo qof. masjidka 12aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Kamalika waxa uu ku yaalaa waddanka Turkiga waxa uuna qaadaa 63,000 oo qof. masjidka 11aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Badshahi waxa uuna ku yaalaa waddanka Pakistan waxa uuna qaadaa 100,000 oo qof. masjidka 10aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Xasankii labaad waxa uuna ku yaalaa waddanka Morocco masjidkan waxa uu qaadaa 105,000 oo qof. masjidka 9aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Jamaa al-Jazair masjidkan waxa uu ku yaalaa waddanka Algeria wuxuuna qaadaa 120,000 oo qof. masjidka 8aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Taj ul Masajid waxa uuna ku yaalaa waddanka Hindiya masjidkan waxa uu qaadaa 175,000 oo qof. masjidka 7aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Istiqlaal waxa uu ku yaalaa waddanka Indonesia waxa uuna qaadaa 200,000 oo qof. masjidka 6aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Faisal waxa uu ku yaalaa waddanka Pakistan wuxuuna qaadaa 300,000 oo qof. masjidka 5aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Masjid Al-Aqsa waxa uu ku yaalaa Falastiin masjidkan waxa uu qaadaa 400,000 oo qof. masjidka 4aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Jaamica waxa uu ku yaalaa waddanka Pakistan masjidkan waxa uu qaadaa 800,000 oo qof. masjidka 6aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Imaam Reza Shireen waxa uu ku yaalaa waddanka Iran masjidkan waxa uu qaadaa 1,200,000 oo qof. masjidka 2aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Al-Masjid An-Nabawi waxa uu ku yaalaa waddanka Sacuudi Arabiya waxa uuna qaadaa 1,500,000 oo qof. masjidka 1aad ee adduunka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Masjidul Haram waxa uu ku yaalaa Sacuudi Arabiya waxa uuna qaadaa 4 milyan oo qof. daawade waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan share gareyso sidoo kale YouTube-ka subscribe saarato Facebook-gana aad follow dhacato si aad ula socoto muuqaalada aan mar waliba soo gelin doono halkan. mahadsanid.